sidoo kale runtii caawa halkan waxay noogu qoran boorkeena doorka ay ku leedahay dhalinyarada nabadda door kaliya kuma liina inagay danteenu tahay maxaa yeelay dalkan marxalad adag uu soo maray way baa ku mid ahay marxalad dalku uu soo maray taalada una roognaye dhagaxtuur in yeelan kooy kor mugdi hayti khabuuro hayti dadalka duuga jiri dadka la ka dhaca jiri bilaanta la kufsan jiri sidaas aawshe oo ku duwada sidii geegaasaytii dhalinyar yara roogda oo yaas abawlen way baa roogday kooxdii onkad ciidankii roog walaa inta ku roogna quruxdun iyo muuqad sangaraga haytaan amnoo jarna dalka maran isku kooyfan hum ahaantii walaa geeg intana sheeni way buu dibkuuna aragna inay dhalatiidaan aragna may way walba ka baranay iyo la leeyahay way baa la ka jareen yaasiinka la ka mooday marxalad adag la ka jara hubiyaha dhacay ila shubkay halgalay iyo wala mide qarax jaray wasaas oo kale oo ku walaas ku duwanta saacaduna roogna saacad yaan dhawayno magali bilaan iska jarna bilaanta qarsho shaleedii isku kooyeen laakiin usoo aadis wada ama walaalis wada jidka ka maamaro koran may weelay amni dari jartimaa oo ku wayba marxaati keenaa dalka inuu sabniyay lan una ku weelaan malle inii dalku amni horan seed dhalinyarina lanka la kafaanahay lanka la ka dhaaradahay dalku roogno oo diyaar man inii dalku inii dibnagada diyaarangana inii dalka dibnagada dalka inii dibnagada diyaarangana dalka inuu deganaal u noqdo diyaar ma u nahay waxaan u malaynayaa way fahmi lahayn dalka inuu dib u noqdo diyaar ma u nahay maxaa yeelay marxalad adigu soo maray dalka waxaan u baahan nahay dalka inuu horumaro si uu dalku u horumaro waa inaan wax badan ogolaanaa oo ka mid tahay nafteena iyo maalkeena iyo waqtigeena si aan u ogolaano waa inaan garab istaagnaa dawladda waa inaan istaagnaa ciidamada qaranka ee dalka maxaa yeelay dadka aanu ku faanayno meeshaan aan ku taagana waa ciidamada qaranka kuwa inoo jooga furmaha dagaalka ee caawa dhaxanta ay ku dhacayso roobka uu ku da'aayo waxay u taagan yihiin maahan danahooda waa danaha ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro diyaar muuna inaan gacmahaas qabsano dhalinyaro diyaar muuna inaan qarankeena garab istaagno marnaba yaan ogolaanin shakhsiyaad dana gaar ah leh ee danaynaya dalka inuu dib u naaqdo inaan garab istaagno kuwa lagu dhaaranaya la danaynayo waa dhalinyarooy dalkan aan wax ku barano kuwa waxaa inaga mid ah dalka ka haajiray qurbaha tegey gobollada dalka qaarkood tegey waxay u tageen waxay ahayd dal caasimaddaanay ku noolaan waayeen caasimadda way nuuraysaa iftiinaa baxaayo iftiinkaas dowladnimaa ku helnay kuma helayno holoda shaksi hebel iyo magac hebel maxaa yeelay waxayna deeqa waa qaran waad aragteen dowladaha shisheeye dadkeena inay damaaciyaan iska daayeen dhulkeenay damaaciyeen khayr allah siiyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed wuxuu wacad ku maray inuusan shakhsi gaara kala naqaashi doonin dowlad gaara kala hadli doonin ee ku qanci doono maxkamadda cadaaladda adduunka oo ay tahay badda ay taalo madaxweynaha waa u mahad celinaynaa annagana waa ku garab taagannahay waxa uu u damqanahay keligiis maana waa ummadda Soomaaliyeed diyaar u nahay inaan garab istaagno qarankeena diyaar u nahay inaan ciidanka garab istaagno dalka hore u socda yaanan dib u celin dalka hore u socda yaanan dib loo celin waa mahadsantihiin